waa dhacdo si weyn loogu faafiyay social media isla markaana argagax iyo afkalaqaad ku riday bulshada. dhacdadan ayaa ka dhacday magaalada Gabiley. wiil dhalinyar ah ayaa si anshaxa ka baxsan ula dhaqmay hablo ay isku dugsi yihiin, kaasi oo muuqaal laga soo duubay isaga oo suun ku garaacaya lagu soo baahiyay baraha bulshada. dhacdadan ayaa si weyn loogu falanqeynayay 24 saacadood ee la soo dhaafay baraha ay bulshadu ku xidhiidho, taasi oo dadyowga ka falceliyay muuqaalkan ay ku tilmaameen cadgudub qaawan oo wiilkaasi si badheedh ah uu ula kacay hablaha uu muuqaalka ka soo duubay isaga oo suunka ku garaacaya. ciidanka booliska gobolka Gabiley ayaa falkaasi muuqaalka tallaabo ka qaaday, waxaanay gacanta ku soo dhigeen fal oogayaashii muuqaalka ka soo muuqday. dugsiga Cigaal oo ardaygani ka mid ahaa ayaa iyaguna xalay soo saaray war qoraal ah oo ay ku sheegeen in ay ardaygaasi ka saareen ka mid ahaanshaha dugsiga Cigaal. waalidiinta dhalay hablaha xadgudubka lagula kacay ee ka soo muuqday muuqaalka oo warbaahinta la hadlay ayaa mahadnaq u soo jeediyay ciidanka booliska gobolka Gabiley. maamulka dugsiga Cigaalna uga mahadnaqay kuna bogaadiyay tallaabada ay ka qaadeen ardaygaasi. waxaan mahad u celinayaa aniga oo waalidkii la soo geliyo social media iyaga oo ay kura yaryar oo fal dambiyeed xun si ula kaca ula dhaqaaqay ardaydayadii oo aan nahay waalidkii. waxaan mahadda koobaad waxaan siinayaa taliska booliska oo si wanaagsan noola shaqeeyay, gacantana noogu haya. wixii haray oo maanta la soo qabanay wax yar yihiin, intii badnayd noo haya ayaan mahad siinayaa. marka labaad waxaan mahad siinayaa maamul Cabdiwahaab oo nala garab taagan iyo ardaydiisii oo dareenka nala qaatay, aad iyo aadna raali gelin iyo dareenba nala ag taagan. caruur hooyo quri wada dhashay ayaa waxa dhici karta in hal shakhsi ka qaloocdo. ma oran karno inay bulshadu wada xun tahay Gabiley, ma oran karno ardayda iskuulkan oo dhan inay wada xun tahay. waxaan gaar ahaan u cambaaraynaynaa ardaygaas oo keliya. halkan waxaan uga mahad celinayaa iskuulka maamulka Cigaal Primary School. waxaan ku yiri imikana hadduu Ilaahay qadaro xukuumadda ay gacanta ugu jirtaa, waxaanu leenahay xukuumaddeedu wixii ay noo geyso ayaan nagu leenahay. qaar ka mid ah ardayda dugsiga Cigaal ayaa iyaguna ka dareen celiyay falka lagula kacay hablaha ay isku dugsiga yihiin. social media la baahiyo laba gabdhood oo ka tirsan dugsigeeda oo markaasi dulmi lagu samaynayo waa arrin aan markaasi ka xunnahay. waxaan u sheegayaa dhammaan ardayda fasalada 8aad gabdhayeynamaba in aanu naga mid ahayn Mahad Cabdirasaaq Xasan oo falkaasi geystay. dhammaan bulshada reer Gabiley waxaan leeyahay mahad anaga naga mid ma aha. taliyaha booliska gobolkana waxaan leeyahay hala mariyo sharci waafaqsan sharciga Jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta halkee lagu arkay arday markaasi xushmadiisa tii dugsiga ka gobol ahaan ka deegaan ahaan hoos u dhiga oo maanta isagoo gabar walaashiyo wax la dhacayo soo dhigay social media. waa arrin aanu ka xunnahay oo aan marnaba aanu ka damqanayno haddaan nahay ardayda dugsiga Cigaal. waxaan leenahay taliska iyo dhammaan maxkamadda sarada in la mariyo arrin sax ah oo sharciga waafaqsan. waxaan leeyahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa Mahad Xasan in aanu naga mid ahayn. inaan iskuulka lagu soo celin dambaysaan iskuulka loona ogolaan, waayo dhaqan bilaaditinada ka baxsan ayuu sameeyay. loomana ogolaan karo inuu wax barto, inuu jaamacad xataa gelin mana ogolaanayno. markaa waxay leeyahay cadaalad aan la marsiyo, dastuurka soo xudhigayna hal la marsiyo, ciqaabtiisana waa inuu maraa. maamulaha dugsiga Cigaal Cabdiwahaab Jaamac Cumar ayaa raaligelin ka bixiyay falka wiilkaasi kula kacay arday ka mid ah dugsiga Cigaal, waxaana uu falkaasi ku tilmaamay fal anshax xumo ah kana baxsan dhaqanka bini'aadanimada. hablihii falka loo geystay ayaa uu abaalmarino guddoonsiiyay si looga raaligeliyo dhibta soo gaadhay. waxaanu isgarab taagaynaa khaladka akhlaaq xumada ku jirto ee uu ku kacay arday iskuulka dhigta
isla markaana u geystay arday kale oo markaa iskuulka dhiganayay iyagoo rawaxaya magaalada dhexdeeda falkaasi oo fal aad u argagax leh social media shalay oo jimcaha la geliyey waxaan filayaa qof kasta oo daawadana aad uga xumaaday waxaan dhammaan horta ka raali gelinayaa cid kasta oo daawatay maadaama dareyska uu xidhnaa ardaygaas waay dareyska ardaydaasi waxa weeye akhlaaqda badan ay ku labisnaayeen waxaan mar walba raali gelin iyo siinayaa iyo waxa weeyaan naftayda iyo iyaga waxaan ka raali gelinayaa waalidiintii dhashay ardaydaas macallimiintii wax u dhigayey annagu ka iskuul ahaan dhammaantood waxaan leenahay waa dhacdo nagu wada dhacday aad baan uga xunahay waa ka qabashadeedana kulley xalay baanu ka hawlgallay ilaahay idankiina kama hadhayno ilaa ardayga ugu dambeeya ama qof dadkii falkaa ku kacay lasoo wada dhammaystira lasoo wada xidhayo ardayga falka geystay oo meesha la dhacayay maaha waxaa jira dad ka duubayey oo iyaguna magaalada ka yimiday goobo kale ka yimid oo markaa waxbarasho magaalada ah kuwaana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ciidanka boolisku ay tallaabo ka qaadeen ay ku raad joogaan markii hadhayna bulshada Gabiley waxaan leeyahay laba arrimood waata koowaad waxa weeyaan dugsigan maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ama Cigaal Primary School waxaan horaba u garaseenay horaba u ogeydeen inuu yahay iskuul ku suntan waxbarasho tayo leh arday ku suntan ilaab iyo akhlaaq wanaagsan laakiin waxa weeyaan inaka shalay toolaad aragtay waxaan filayaa inaanu sumcadeedu wanaagsanayd ee bulshada dhexdeeda ku leeyahay inaan waxa weeyaan aan waxba yeeli doonin annaga isku kalsoon idinkoo waxa weeyaan service-kii adeegaan hayno idinkoo ardaydu iskuulku waxa sharafta uu ku leeyahay gobolka iyo waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxa weeyaan ardayda halkan joogta waa arday wanaagsan waa arday akhlaaq leh waxaan filayaa qof kasta oo magaalada Gabiley ka mid inooga markhaati kacayo waxaan mar hore mar dambe leeyahay dhacdadaas waa dhacdo xun oo aanu cambaaraynayno ka wasaarad ahaan ka dugsi ahaan waalid ahaan waxa weeyaan iyo haddaan nahay bulshada reer Gabiley matalaynaba waxaan isku daynaa inaanu ardaydaasi aanan ka hadhi doonin falkaa uu ku kacay dib waxbaa noo soo baxaya waxyaalo fara badan baa noo soo baxaya mase doonayna ka hor dhaco baadhista booliska maadaama waxa weeye hay'adii sharci gacanta ku hayaan dadkoo dhanna uu galay ardaydaas waxa weeye sharaftooda inay ardaydu ugu sharafta badan leh laakiin waxa weeyaan hal xun oo ka soo baxay ayaa dhibaatada inta la iskuulka u geystay waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed oo warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.